الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، رب سبحانه وتعالى أياكم مهدسن يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إن شاء الرحمن waxaan filayaa walaalaha inaan u iclaamiyo mowduuc damacsan yahay sixirka. Damacsan yahay astaamo iyo calaamado ayaa jira makriga inuu ku sameeyo. Makrigu rag iyo dumarba iyo siday doonayaan danahu, walaakin ama lagu dareemi karayo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa waa uu bayaamiyey, waa uuna u caddeeyey. rabbi subxaanahu wa tacaala baana ka rajaynayaa addoomaha inta ilaahay subxaanahu wa tacaala uga qadaray ee cilmigeedana ilaahay fahansiiyey in ummadda intoodii kalena ilaahay uu ku fahansiiyaa. rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan. waxaad filaysaa aan filaynay in xoogaa qadku yara cuslaa, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waa inooga hagaajiyey. waa ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa, manigiisa iyo karamkiisa uu inagu galladaystay dhammaan. yacni maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala aadamaha xaggiisa wax walba isaga ayaa u dhammayn karaya, isagaana u tilmaami karaya. insha allah waxaanu gudageli doonaa mowduucii aanunu ballansanayn insha araxmaan. mowduucana wuxuu ahaa calaamadaha iyo astaamaha oo qofka bini aadamka uu ku garan karayo qofka doonaya inuu sixir ku sameeyo ama qofka makri sixireed wata. calaamadaha iyo astaamaha aan tilmaami doona hadday kasoo daahiraan inuu qofkaasi xaqiiqsado inuu qofkaasi la doonayo sixir. ilaahay subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan, mahad ballaaran u qalanta rabbi subxaana wa tacaala awoodiisa. waxaana rajaynayaa walaalaha insha araxmaan si ay uga faa'iidaystaan caalamka daafaha walaalaha muslimiinta kusii nool in iyaguna sii sheergarayaan si ay markaasi uga faa'iidaystaan walaalaha muslimiinta oo arrinkaani ay ka doohan yihiin. bacda naxmud allaha tabaaraka wa tacaala wa ashkuruhu ilayhi calaa nicamihi daahiratan wa baatina. walaalaha muslimiinta caalamka meel kastay ku sugan yihiin waa salaamaya. waxaa jira dhowr iyo 20 qodob oo ku saabsan astaamaha aad ku garan karto qofka kale sixirka la damacsan, xaaladiisii iyo wixii uu markaasi uu ku sugan yahay. su-aalaha qaarna waxaad ka garanaysaa, bal iska daaya waxaan kuu bidhaamin doonaa haddii ilaahay nafta ii saamaxo. magriga insaanka markuu sixiru qof la doonayo inuu ku qabto ama uu ku sameeyo sida kasoo daahiraysa calaamadaha kuu tilmaami doono, bal waxaan kuu bidhaamin doonaa ama aan kuu tilmaami doonaa, aan ku tusi doonaa, aan ku iftiimin doonaa xataa haddii lagugu talagalay sixirkaaga in loo soo dhiibo jin uu doonayo inuu kugu dulfuliyo, qaabkii aad uga yacni garan lahayd haddaad calaamadaha isagana aad aragto. awalan marka waxaa mawduucii ku bilaabayaa qofka insiga ama insaanka ah calaamadahaasi hadduu sameeyayo ama uu kugula soo beegsadayo qofkaasi inuu sixir kula damcayo. tilmaamta labaadaan bixinayo waxa weeyaan jinka haddii loo soo dhiibo sixirka qaabkuu dushaada ugu fulinayo iyo dhibaatooyinka aad dareemayso ama calaamadaha isagana aad dareemi karayso. haddaa calaamadaha kuu tilmaama aad dareentayo waxaad xaqiiqsanaysaa in jin laguu soo diray, yacni uu kugu fulinayo sixir oo badankaaga ama jirkaaga u gelinayo. qaybta saddexaadna waxaan kusoo gabagabaynaya haddii ilaahay naftii saamaxo qisooyin aan la kulmay ee arrimahan ku saabsan. awalan walaalaha muslimiinta ah meel kasta caalamka ay joogaan, ilaahay baan ka rajaynayaa xanuunka midkiisa gudaha uga jira iyo midkiisa kor ka taaganba labadooda inuu ilaahay ka badbaadiyo. caalamkana maanta waa lagu dhib qabaa, ummadana aad bay ugu dhib qabtaa, wayna ku rafaadsan tahay. masalada koowaad waxa weeyaan aad ku garan karaysaa qofka inuu kugu talagalay ama uu sixir u wato in adigu uu kuga asiibo. awalan
mar walba wuxuu ku imaanayaa waqti aadan filaynin. imaashaha way suuroobi kartaa hal mar ama laba mar qof aad garanaysid qof aadan garanayn inuu kugu yimaado, laakiin akthar min 10 mara 10 goor in ka badan haddii qofka bini aadamka ah uu ku imaado waqti aadan filaynin, xaaladaasi qofkaasi wuxuu la wareegaya waa sixir. waa 10 goor in ka badan oo soo noqnoqota oo adigu nafsadaadaba aad isweydiisayo oo aad istiraahdayo qofka kan adoon la ballansaneen waqti walba muxuu kugu soo kadinaya adoona filayn kugu imaanaya. nabiyaadka waxay ka mid tahay qofka sixirka loogu qabtaa ama lagu asiibiya bay ka mid tahay. marka haddaad aragta bigayri mawcid, ballan la-aan qof waqtigaaga waqti aan ahayn kula soo beegsanaya adoona filayn ku imaanayo 10 goorna ay ka badnaatahay adoo u tirinayo, qofkaasi xaaladaasuu la wareegayo waa xaalad ficil sixir uu kugu asiibayo. mas'alada labaad aad ku garanayso qofka inuu sixir uu kugu asiibayo ama sixir uu kuu sido ama uu kula damacsan yahay waxa weeyaan kusoo hor istaagayo wuu tiiraanyeysan yahay wuuna murugaysan yahay. mar walbuu ku yimaado qof aad garanaysa ahaado ama qof aadan garanaynin, wejigiisa waxaa ka muuqata murugo. yacni qofka hadduu qaraabo yahay ama ehel yahay ama asxaab yahay ama aad isgaranaysaan, hal mar ama laba mar waa laga yaabaa isagoo murugaysan oo ku yimaado. laakiin 10 goor in ka badan hadduu ku yimaado qofkaasi oo markuu kusoo ag fadhiistan uu murug ay ku taagan tahay, qofkaasi waxay mas'alada saddexaadi waxa weeyaan marka uu ku yimaado oo uu kusoo hor istaago qofkaasi hadalkiisa ma caddeysan karayo, oo isagoo ku hor taagan oo aanan kula hadlaynin baabal mas'alada iyo waxa aad weydiisayo isagu si toos kaagama jawaabi karo, haddana bal wuu ku hor taagan yahay. haddaad aragto qof mar walba ku hor taagan oo markaad su'aal weydiisayo su'aashana aan kaaga jawaabaynin, hadalkii wax afkiisa ku jiran uusan caddaysan karaynin, qofkaasna fi xaaladaasi hadday soo laalaabatayo qofkaasi qof sixir damacsan weeyaan. mas'alada afaraad, qofku waxa uu soo siinayaa sixiroolaha ama midka saaxirka wuxuu soo siinayaa wax aad moodo sidii tubaakadii ama sidii nacnaci ayuu soo siinayaa. shaygaasi wuu qaadayaa, waad dareemaysaa halkan kore ee bishinta qaybteeda hoose ama qaybtan hoose ama qaybta kore buu gelinayaa. markuu ku ag imaado, mar walbuu ku ag imaado waxaad dareemaysaa in uu halkan hoose ay wax ka kuusan yihiin ama xaggan kore ay wax ka kuusan yihiin oo ay uga jiraan isagoo aan marnaba hadlaynin. wuu fadhiyaa ama markuu kula hadlayo si hoose uu hadlayaa, meelahana waxbaa ka kuusan. haddee daa'iman qof mar walba ku imaado halkan ama daanka meelahan wax uga jiraan uga kuusan haddaa aragto, waa ficil uu soo siiyey ninka saaxirka ah, qofkana ka taxadar. mas'alada shanaadi oo aad ku garanayso qofkani inuu kula damacsan yahay fi xaalati sixir, oo sixir uu kugu asiibo uu doonayo, wicitaanka uu kusoo wacaya ama wuxuu kusoo wacaya tii hore ama masaladii hore waxay ahayd xilli aadan filaynin buu kugu soo kedinaya oo kuu imaanaya. tanna waa teleefon buu kugu soo wacayaa xilli aan mar walba busy ku sugan tahay. hal maalin adigoo nafis leh ama adigoo maskaxdaada soo jeedo kuma soo wacayo, kumana soo teleefon garaynaya. mar walba xilliga lagaaga faa'iidaysanayo wax in lagugu qabto la doonayo, adigoo busy ah baa lagaaga faa'iidaysanaya. haddaad aragto qofku laazimaya wicitaankiisa xilli mar walba aad mashquulsantahay ama busy aad tahay, xilli kale aan kusoo wacayninna qofkaasi fi xaalati sixir buu ku sugan yahayo uu kugu asiibi rabaa. mas'alada lixaad, yacni waxa weeyaan oo qofka aad ku garan karta calaamadaha iyo noocaas oo kale inuu kugu asiibayo oo aad ku garan karto inuu sixir sidaayo, mar kasta uu kusoo waco intaadan teelka aadan qaban ama telefoonka aadan qabanin waad maroor dilaacmaysaa, qalbiga ayaa ku kala dhacaya,
ama waad sharaynaysaa. haddaad aragto qof markuu ku soo wacayo, qofkoo doona rag iyo dumar ha ahaadee, wadnaha halkaasi ku kala dhacaya ama ku kala jeexmaya oo aad gariiraysa haddaad is aragtaa, masaladana kugu soo lalaabataa, fii xaalati sixir buu qofkaasi telefoonka kugu adeegsanaya, isagana ka taxadar. mas'alada 7 waxa weeyaan oo aad ku garan karta min calaamaatihim ka mid ah, mar kasta oo uu ku soo waco oo telefoon uu kugu soo wacayo, wuxuu kugula hadlayaa hadal kulul oo aadan u adkaysan karayin markuu kula hadlayo. haddana hadalkaas uu kugula hadlayo ma awoodi karaysid inaad u jawaabto. yani hadallada uu kugula hadlayo waa dareemi, waxaad leedahay iska dhici oo u jawaab, laakiin awood dhan malihid aad u jawaab ugu celiso adigoo hadalkaas inaad uga jawaabto aad doonaysid. haddaad aragto qof mar walbaad ka heebaysanaysid, isagana markuu ku soo wacayo waxaana la mid ah sidoo kale kulanka markuu kula kulma ama uu kuu yimaadayo, hadal kulul indhaha kaa saaro, hadal kulul kula hadlayo, adigana sidii qof qaboobayo biyo aad ku dhexdhacay sidoo kale aad noqonaysid, iska qaboobaysid, waxna aad u jawaabi karin, ama telefon haato ama si life ha kugu yimaado. qofkaasina fii xaaladaasi waa qof kula damacsan inuu sixir kugu asiibayo. masalada 8, mar walba uu kuu yimaado amar ayuu ku siinayaa, amarkii uu ku siiyana adoona ka fiirsanan baad u degdegaysaa, waad ku degdegaya amarkii fulintiisa sabab la-aan. waa waxyaabahaad ku garan karto, rag iyo dumarba, qofay wax idinka dhexayn, qofay wax idinka dhexayninba, markuu kuu yimaado amar buu ku siinayaa, amarkiiba adagoo dhaga iyo indho lahayn markiiba ku dhaqaaqay fulintiisa, sababtaad amarkiisa u fulinaysina maba garanaysid. haddaad aragto qofka sidaa kugu yimaada amar ku siiya oo fulintiisa horey mar walba aad ka qabanaysina, qofkaasi waa qof kula damacsan sixir inuu kugu asiibayo. masalada 9 waxaa weeyaan, mar walba qofka sixirka kula damacsan ama aad ku dareemi kartaa inuu sixiru kula damacsan yahay, mar walba meel aadan filaynin ayuu soo istaagayaa. adoo iska taagan isagoo gadaashaada taagan baad arkaysaa, adoo iska fadhiyo isagoo gadaashaada fadhiyo baad is arkaysaa. war markaad weydiiso goormaad soo istaagta ama goormaad soo fadhiisata aad tiraahdaana maba ogi buu ku leeyahy, ama waqti fulaan baaba soo fadhiista buu ku leeyahy, aduna ma dareemaysid. haddii masaladaa kugu soo lalaabato, rag iyo dumar kay ahaadaanba, xilli ama waqti aadan filayninba isagoo gadaashaada taagan ama fadhiiba aad aragtaba, qofkaasina waa qof kula damacsan fii xaalati sixir weeyaan. masalada 10 waxa weeyaan oo aad ku garan karto calaamaadka qofkaasi inuu kula damacsan yahay fii xaalati sixir, markuu kula joogaayo, mar walbuu kula joogaayo, waxbuu ruugayaa isagoo aan kula hadlaynin. waxbaa afka ugu jira, ilkihiisa ma muuqdaan, afkiisuu isku qabsan yahay, waxbuu gudaha ka ruugayaa, hadal kastoo aad la hadashana kula hadli maayo. qof aad garanaysid iyo qof aadan garanayninba haddaad marxalada kala kulanto, ilaahay ka magan galo, qofka agtii ka tag. xaaladaasi buu qofka kugu asiibayaa. ila maxaa yeelay waxa uu ruugayo waa nin saxira uu soo sameeyey, uu aaminsan yahay ruugitaanka uu ruugayo ama uu ku yasayo usan kula hadlayninna inuu markaasi kugu qabanayo adiga. adu maskaxdaadii attentionkaaga wuu maqan yahay, waxaa leedahay qofkaanaan kula hadlaynin waxna ruugaya muxuu waaye. su-aalahaad isweydiinaysay baa xaaladaasi jinka ka faa'iidaysanaya, adigana kugu dabraya ama uu kugu qabanaya. haddaad aragto qof wax ruugaya oo aan kula hadlaynin oo agtaada mar walba soo fadhiisanayana, fii xaalada qofkaasi aad uga taxadar, waa xaalad uu sixir kula damacsan yahay. masalada 11 mararka qaar midkaa saaxirka ah ama sixirka kula damacsanaa loo soo sameeyey, mararka qaar wuu guryamayaa, wuu hadlayaa, hadal hinraag buu ku hadlayaa, hadalku ku hadlayana ma sifay kartid mana garan kartid. mathalan wuu ku imaanayaa, intuu kula joogo wuxuu ku haynayaa
afka buu saas ugu celcelinayaa dhagool miyaa baad is leedahay hadaa is weydiinaysid hadalkaasi uusan hadlaynin uu guryamay qofka uuna ka agtegayno agtaada uu joogana qofkaasi qof fal sixir loo soo sameeyo weeyaan adigu uu doonaya inuu kugu asiibayo waana min xaalaatihim ayay ka mid tahay haddaad aragto marka qof guryamayo hadalkiisana aan caddaysanaynin oo hadalkiisana aad waxba ka fahmaynin haddana guryamaya maanta idil agtaada joogana qofkaasi waa xaalatu sixir weeyaan xaaladda 12 oo aad ku garan karta ninkaa saaxirka waxaa weeyaan mararka qaar wuu ku fiirinayaa aad buu indhaha kugu gubayaa marnabana kula hadli maayo ama qof aad garanaysa aado ama qof aadan garanayn aado ilaa aad la yaabto tiraahdo war qofkan weligii dad miyuu arki jirin miya anigu miyuusan arki jirin miya oo muxuu iga eegayaa liajli dalika qofku fiirinaya mar walbaba oo aanan kula hadlaynin xataa haddaad la hadashaan kula hadlaynin haddaad aragto qofkaasna waa xaalad sixir yacni waa maraaxisha sixirka uu ninka saaxirka usoo sameeyo uu soo amrayo leeyahay xaaladaasi qofkaasi markaa kula kulantayo sidaa ku sameey wuu ku qabsamaya waa marka inaad ka feejignaataa qofku eegaya indhaha aad kugu gubaya haddana aan marnaba kula hadlaynin xaaladda 13 qof mar walba markuu kula hadlaya ama inuu kula hadla damcaayo afka ka ubrinaya ubarka keenaya afka ayuu xumbay ubur buu ka keenaya halkan ka daadanaysa ubur cad baa dhinacyada ka daadana wuuna kula hadlayaa xaaladaasi qofkaasi aad aragto kugu soo lalaabto dhowr mar aad la kulantaana qofkaasi ka taxadar fi xaalaati sixir ayuu doonaya inuu kuga asiibiyo kuguna qabto inta calaamoodaan soo sheegayna mar kasto ay ficilka aad la kulanta ficilada ay samaynayaan jin baa daba jooga oo ficilkii u fududaynaya oo ula samaynaya adugu intaas marna waxaa lagaa doonayaa inaad la yaabto adoo attentionkaaga iyo dareenkaagu maqan yahay in lagula asiibiyo jinkan uu ku riixo oo jirkaaga uu geliyayo marka haddaad aragto qof markuu kula hadlaya haddii goor ubrinaya afka dhinacyada ka ubrinayana fi xaalaati hada waa sixir buu kugu doonaya inuu kugu asiibiyo xaaladda 14 telefoon buu kaa soo wacaya waa qofka aad garanaysay hebel ama heblaayo telefoonka markuu kaa soo wacana wuu aamusaya ama telefoonka dhexdiisa waxaad dareemaysaa inay ku dhex furan tahay hawo aariyo hawo baa dhex dulduulaysa hawadaa dhex dulduulaysa ee laga aamusan yahay oo aadan lagula hadlaynin qofkaasina haddii ay soo lalaabatayo xaaladaas iyaduna waa ficil iyo fal sixir in lagugu qabto la doonayo masalada 15 ama xaaladda 15 qofka mar walba aad istaqaanaan ama ha kaa fogaado ama ha kuu dhowaado oo qof aad isaga ahayn mar walba hadiyad kuugu soo dhiibayo hadiyadaha waa sax waa la aqbalayaa haddii qof uu kuu soo dhiibo hal marna ma aha laba marna ma aha 3 marna ma aha in ka badan isagiina kuuma keenayo mar walba qof dad kala duwan oo kala cayn baa kuu keenaya hadiyadda waxaa lagu leeyahay fulaan ama fulaana baa kuu soo dhiibtay waa lagu leeyahay haddii hadiyadaha noocaas oo kale ay kugu bataan imaashaha ay ku imaanayaan ama ay kugula soo kulmayaan haddii aad yacni kala kulantayo xaaladaasna waa xaalad lagula damacsan yahay fal hadiyadda oo qofkii isagii kuu soo dhiibay ama laga yaaba inuusan telefoon kuusoo dirin uusan ku dhihin hadiyad baa kuusoo dhiibay oo mar walba lagugu soo gediyanaya hadiyadaha noocyadaas oo kalena xaaladaasi waa xaalal fal weeyaan aad in looga taxadarana ay mudan tahay lana ogaado qofka inuu fal kula damacsan yahay bal hadiyadahaasuu kuu soo dhiibayo qof kale kugu soo dhiibayo adigu ma aadan u dirsanin mana aadan filaynin hadiyadaha way kala yihiin hadiyada aad filayso qof kuu sheegayo waa khayr laakiin hadiyadaha aan filaynin mar walba si kadiis kuugu imaanayo hebel baa kuu soo dhiibay lagu leeyahay adoona filayn una dirsanin taa weytan aan ka digayo in la iska ilaaliyo xaaladda 16
toddobiyo tobanaad waxaad ku garanaya calaamadaha qofka saaxirka ah ama sixirka kula damacsan oo loo soo sameeyey aduu inuu kuga qabto ama danihiisu kaa gaaro uu doonayo haddii goor afkiisa waa mid qurmoon mar kasta uu kuu yimaadayo oo uu kula hadlayo uduga afkii ka soo go-ayo uma aad adkaysan karaysid isaguna hal mar maaha laba mar maaha saddex mar maaha goor kasta uu ku yimaado qofkaasi haddaad aragto afkiisa inuu soo suyicayo ama afkiisu soo udgayo udug aad u xumaan badanooda aduu adkaysan kari weyso xaaladdaana waa fii xaaladda qofka la doonaya in lagu asiibiyo sixirka xaaladda 18aad oo aad ku garan karaysaa qofku inuu saaxir yahay ama sixir uu kula damacsan yahay meel allaala iyo meesha u dhaqaaqdo oo istiraahda aad ama aad ku sugan tahay wuu kaaga horeeyaa halkan buu kula kulmay waad ka tagto meel kale aaday meeshii aad aaday isagoo kaaga horeeya baad arkaysaa waad kasii gudubto meel kale ayaa tagtay meeshii haddana waa haddana isagoo kaaga horeeya baad aragtay hal maalin gudaheedii ha ahaato dhowr maalmoodoo kala duwan ha ahaato isagoo sifadii iyo qaabkii iyo dharkii aad ku garanaysay maalinkai aad ku aragtay buu meel walba kaaga soo horeeya xaaladda qayb ka midana jinka wuu qaadan karayaa oo inuu kaaga hormaro insigana wuu samayn karayaa hadduu markaad aragto meel walbo xaaladda bini aadamkaasi uu kaaga horeeyayo inuu meel walba uu kaaga horeeyo kaaga hor imaanayo xaaladdaana waa xaalad la doonaya in laguga asiibiyayo sixir ciyaadan billah masalada 19aad qofku inuu sixir kula damacsan yahay ama sixir uu kuu sido kugu asiibinayo uu doonayo waxaad ku garanaysaa qofka oo marmar kuu yimaado hadday inan tahay iyo hadduu wiil yahay iyo haddii uu oday yahay haddii ay maamo tahayba mar walba uu ku yimaadaa hal xubin jirkaada ka mida ayuu calaamaysanaya oo kaa taabanaya mathalan gurigaaguu kugu yimaaday wuxuu calaamaystay waayo calaamadda yani saaxirka ayaa usoo calaameyna wuxuu leeyahay gacantaada wixii lagu mariyey ama lagugu soo aqriyey xubintaasi un ka taaba maanta beri markaad la kulanta mar labaadna ka taabo saa damba markaad la kulantana ka taabo mathalan hadduu yidhaahdo sag un ka taabo qofkiisoo usoo socda ama isagoo kuu qoslay ahaado ama isagoo kuu cadhaysan ahaado halkaas sankiisoo kaa taabana kulama hadlayo haddaad aragta marka qof xubin keliya laazimaya markuu ku imaado inuu kaa taabto halkaa xubin keliya inuu kaa taabto hadduu laazimo oo xubnaha kale uusan taabanaynin xubintaalo uu ku adkaysanayo xubintaa waxaad ogaataa qofkaasi inuu doonayo inuu kuga asiibiyo sixir masalada 20aad qofka oo mar walba jecel markuu ku yimaado inuu gacanta kugu salaamo nacam way banaan tahay qoftii dumarka ah markay qofta dumarka u imaado inay musaafixayso ragga markay ragga u yimaada inay musaafixeeyaan oo ay salaamaan laakiin salaantaasi waxbaa ku lamaan salaanta macruufka la garanayo ama gacanta la isku salaamo ama xabadka la isaaro labada jinsiyadood isleh laakiin markii uu yani calaamaadka ku garan doonto weeyaan qofka inuu saaxir yahay markii uu ku yimaado oo gacanta uu kugu salaamo gacantaada kama fuqayo muddo 15 daqiiqo ugu badnaan ugu yaraana 10 daqiiqo gacantaadii buu sida u haynaya qofkaasi hadda inaad iska fujiso dama xataa kaama fuqayo xeelad baa ku jirta marka ninka saaxirka baa soo amraya in uusan kaa fuqin muddo 10 daqiiqo waana 10ka daqiiqo lagugu fulinayo howsha la doonaya in lagaa yeeshto sixirka dee noqoto qofkii ku yimaado ku salaamo markuu islaamku ugu salaamo gacanta kugu salaamo haddii dumar tahay dumarka jinsiyadda gacanta u bannaan uu ku salaamo markiiba inaad iska fujisa isku day hadduu laakiin kugu sii dhegan yaad aragto labada gacmood kugu sii dhegan yaad aragtona xaaladdaa ka dagaalam waa xaalad la doonayo adoo waxba ka dhigin oo is leedahay qofka kani yacni waa muddo kaa maqnaa ama waa isku xiisteen oo gacanta sidaa kaaga sii hayaad aragto xaaladdaasina waa xaalad yacni ku tusinaysa inuu qofkaasi kula damacsan yahay sixir waali markuu gacantaada ku dhago cabbaar inuu hayo uu isku dayaayo
waxaan filayaa qodobada aad bay u tiro badan yihiin laakiin 20ka qodob baa ugu muhiimsan 20ka qodob ee aan soo tilmaamay ayaa ugu muhiimsan in laga taxadaro lana ogaado dadkan ciinka oo kale inay ku dhaqmaan haddana kugu soo noqnoqonaya ficliyan siday u samaynayaan xaaladahaasi waa xaaladaha insiga uu damacsan yahay inuu sixir ku asiibo qofka uu doonayo calaamaadka 20ka bayna leeyihiin waana inaad ka taxadarta inta aad caalamka ku nooshahay calaamadahaasi qofka aad ku aragtay inuu kusoo lalaabatayo ama qof muslima ku kadinayo ku samaynaad aragtaa inaad uga taxadartayo xaaladaas waa xaaladda marka insiga uu ku samaynayo insiga kale ama jinku isagu sixirka ma loo soo dhiibi karaa mana ku asiibin karaa qofkii insiga ahaa jawaabtu waa haa in loo soo dhiibo midkii jinka saaxirka ahaa jinka u adeegaya buu usoo dhiibayaa sixirka adigoo bini aadam ah buu dushaadii gelinayaa xilli aad khaflad ku sugan tahay ama digriga ilaahay aad moogan tahay buu jirkaaga gelinayaa isaguna calaamaad buu leeyahay marka lagu garanayo calaamaad ilaa iyo 6 ama 7 hadduu qofka bini aadamka aad dareemayo calaamadahaasi oo yacni isagu gaar ahaan u dareemaya isagoo qofna aanan arkaynin walaa jin walaa insi midna aanan arkaynin hadduu calaamadahaasi dareemo calaamadahaasi waxay daliil u tahay in saaxirka uu jin usoo dhiibay sixirka oo qofka insiga dushiisa uu ku fulinayo waxaa ka mida ugu horeeyo qofkii isagoo iska jooga inuu dareemo mar walba biyo lagu sayraya biyo lagu shubayo biyo lagu firdhinayo maanto idil waxyar kadib wuxuu leeyahay mar roob baa soo daatay biyo halkan laygaga shubay biyo wax qof lagu sayray oo kale baan ahay xaaladaasaad aragtay ama wejigaaga ama jirkaaga qayb ka mida mar walba wax lagu sayrayo oo aad dareemaysa qoyaankooda haddaad aragto xaaladaasi waa xaalad jinka oo sixirkii oo saaxirkii uu soo dhiibay jirkaaga ama xubnahaaga uu ku fulinayo waa inaad marka ka taxadartaa xaaladahaas marka aragtaa inaad ku orodo weysadii inaad ku orodo digrigii inaad ku orodo salaadii inaad ku orodo khayrkii inaad ilaahay subxaana wa tacaala ka hoos gashayo haddaad aragta marka waxyaabo lagugu sayrayo mar walbaba jirkaaga u dareemaysa qoyaan ahaan inuu u taabanayo kuguna soo noqnoqdaa xaaladaas waa xaalad jinka uu fulinayo sixirkii loo soo dhiibay dushaada uu ku fulinayo masalada ama qaybta labaad waxa weeyaan inaad dareento mar walbabaaba adigoo uu dhagax kugu dhacayo mid aad arkaysid ha ahaado ama mid aadan arkaynin ha ahaado adoo iska fadhiyo baa laga yaabaa wax dhagax laguu soo tuuro qof lagu dhuftay oo kale in dhagax laguu soo tuuro markuu kugu dhaco kale aad boodaysid sida waran oo kale ama dhagax oo kale dadka qaarna way arkayaan qaarna ma arkayaan oo yacni dhagaxii ama shayga lagu soo tuuro dareem ahaan inuu jig ku dhahay buu dareemayaa ama wixii inuu ku dhacay haddana wixii yacni yara gadgadoomay oo agtiisa ku dhacay buu arkaya dadka qaarna way arkaan dhagax ahaan qaarna way dareemaan marka adoo iska fadhi wax lagugu soo tuuray haddaad aragto kale markaasi oo jirkaaga yacni aad ka dareemaysid xaaladaasna waa xaalad jinka uu ku fulinayo dushaada inuu ku fuliyo in sixirka loo soo dhiibo uu ku fulinayo calaamada saddexaad waxaa weeyaan jinkii ayaa waxaa loo gowracayaa ilaahay keyrkiisa wax loogu gowracayaa waxyaaba loo gowracayna waxaa ugu badan ee shayaadiintu iyo saaxiriinta ay sameeyaan doorada oo kale doora baa waxaa loo yeelayaa kalar gooniya ama kalar fulaan doorada noocaas oo kale ama diiqa noocaas oo kale keena baa laleeyahay iyagiibaa markii sixirkii falka lagu sameeyayo way soo qaadayaan qofkiioo iska socda ama gurigiisa joogo unbaa sidii wax roob ku soo daatay oo kale dushiisii baa lagu gowracayaa qoyaan ahaan buu dareemayaa qofkii wax kusoo daadanaya laakiin waa dhiiggaasi digaagada ama diiqu
oo dushiisa shayaadiinta ku dul gowracayaan oo sixirkii falkiisa lagu qabanayo. waa min calaamaad waxay ka mid tahay qofku sixirka jinka loo adeegsado badanka bini aadamka u dhexgeliyaayo. calaamada afraad waxaa weeyaan qofku oo haddii goor carabkiisa ama afkiisa ay kasoo dhandhamayso dhiig. mar walbaba afkiisa wuxuu leeyahay dhiig baa iisoo dhandhamaya ama afkayga dhiig baa ka socda. xaaladaasi qofka aanan xaqiiqo lagu haynin afkiisa nuusan dhiig ka soconin dhiigna uu usoo dhandhamayo waa xaalad jinka uu ficil sixira uu ku fulinayo qofka bani aadamka ah. masalada shanaad waxaa weeyaan qofku oo maalin walba eedin wareegtayo jirkiisa ka dareemo. eedintu waa la garanayaa macna ahaan qof wax ku taagmay baa la yidhaahdaa odin ama eedin, labadaaba waa la yidhaahdaa jirkiisa. eedinta sida macruufka ah qofka markuu muruq galo ama eedinay ku taagmato ama la yidhahda qabow baa qofkaani galay, hal meel baa xubintaasa xanuunayso, hadduu daawooyin qaatana inuu ka kac waa laga yaabaa. laakiin eedinta guurguuraysa oo marna dhabarka kaa qabanaysa, mar caloosha galaysa, oo mar qoorta galaysa, oo mar gacan galaysa, oo marba dhinac eedintaasi u guurguuraysaayo, xaaladaasna waa xaalad jinka sixir loo soo dhiibo jirkaagu gelinayo hadda meel uu ku gujinayo ama meel uu ku mudayo. xaalada marka eedimaha guurguuraya ama oodinta guurguuraysa qofka bini aadamka jirkiisa meelba marba ka qabanaysa u guurayso waa xaalada fi xaalati sixir uu fulinayo jaanka ama jinku. masalada toddobaad waxaa weeyaan qofkii oo mar walba ay daba joogto wax qurmoon, wax suyucaya ama wax uraya. meel kastuu tago, hadduu gaari saaray, hadduu guri joogo, hadduu bulsho ku dhex jiro, hadduu goobtiisa ganacsiga jooga, mar walba dadka kale uma soo qurmuunaya, laakiin isaga mar walba wax qurmoon oo uraya ayuu udginayaa ama usoo urayo. ilaa dadka qaarkooda maanta nolosha ay ka dhaceenoo ay yidhaahdeen xataa waxa kan waa waxyaaba in adduunka ka tagta baaba kaaga wanaagsanaan lahaa haddiiba udigaasuu kuusoo uraya ama kuusoo udgayo. waana qurunkii iyo sixirkii iyo bilaayadii oo ninkaas saaxirka uu soo xiray oo meel lagu xiray oo la suyuciyey oo la uriyey ayaa jaankii soo qaaday oo dushaada wuu kula wareegaya oo mar walbaba dhinac buu kaaga keenaya oo hawada kaaga qaadan lahayd oo meeshii aad oksijiinka ka qaadan lahayd oo mar walba kaaga keenaya si uu nolosha kugu uriyo oo adiguna markaa noloshaada uga dhacdo. xaalada qofka marka meel kasta uu joogo uduga qurmoon uu daba joogaayo mar walbuu kasoo daba udgayo, xaaladana waa xaalad jinka uu ficil kugu fulinayo sixir loo soo dhiibay. xaalada sideedaad waxaa weeyaan qofka oo siduu marba isaga joogo ayuu iska maroor dilaacmaya, qalbiga ayaa qac dhacaya oo jabaya, tabartii oo dhanna way ka tagaysaa. masaladaha caynka hadduu ay kugu soo laabtaan ayna daa'im kuu noqdaayeen waxaad ogaataa ficil waxaa jira jinka loo soo dhiibay oo qofka bini aadamka ah uu ku fulinayo. soo u jooga qofkii macnaha waa qof macnaha qalbiga qac dhahay naxaya buu noqonayaa. isla marka uu naxo markaasna ilaah dukuurayan waxaa weeyaan labadiisii adimood ama xubnihii baa tabar dhacayo, tabar oo dhan wax ku qabsada ama adkaaruu ku akriyo ama waxyaabuu ku sameeyo ma uu lahaanayo. xaalada marka qofka tabar dhacaya mar walba uu maroor dilaacmayo ama qalbiga jabayo dhacaya aynu ku soo laalaabataa naxdin awgeeda waa xaalad jinka uu ku fulinayo qofkaasi inuu markaasi yahay qof jinka sixirka uu macnaha loo soo dhiibo uu ku fulinayo. halka haddaa inaha uga soo gaabsado qaabka jinka uu qofka ku dareemi kara inuu sixirka loo soo dhiibo ku fulinayo, ama insigii oo si toosa qofka calaamadahaas hadduu ku arkay isagana uu u fulin karayo, waa labada xaaladood. ama qisaskan doonaya inaa idinla wadaago dad badanna inay tusaale u noqdaanna aan rajaynayo.
waxa weeyaan laba qiso oo cajab badan. qisada ugu horeysa waxa weeyaan inan baa waxay u tagtay nin saaxira. ninkaas saaxirka ay u tagtay iyadoo doonaysa odaygeeda inuu guriga u fadhiisiiyo, iyada doonaysa inuu odayga guriga loo fadhiisiiyo. way u ashtakooti, odaygii ma hayo, waqti walba guriga ma joogo, waxaan ku sameeya ma garanayo, wax kalena kaama doonayo, wax allaali waxaad doonta ayaan ku siinayaaye odayga uun guriga qof ii fadhiista ha noqdo oo guriga ii fadhiisi. waa balaayo lugahaga ku raadso. markay u tagtay wuu fiiriyey, inan ilaahay subxaana wa tacaala qurux siiye buu ahaa, owlaad ilaahay siiyey, ilaahayna maal siiyey. wuu fukaray ninkii saaxirka ahaa, fursadii buu ka faa'iidaystay. wuxuu yidhaahday inuu wax usoo tufay, uu yidhaahday waa tahliil, waad qaadaysaa buu yidhaahday. odaygii markuu yimaado guriga biyaha ugu daro sii, odayga gurigu kuu fadhiisanayaa. miskiin kadsoon bay ahayd, dantuu saaxirka lahaa baana ka weyneed. biyihii bay la soo carartay, xil uu qado u yimaaday bay juiskii ama waxay u qasaysay bay uga dartay, way siisay. cunnadii markuu sida tan usii dhammaystayba odayga baagiisa buu xirxirtay oo gurigiibuuba ka dhaqaaqay, wuu tagay. way yaabtay oo aad bay isugu naxday. markuu odayga tagay haddana ku soo laabatay ninkii saaxirka ahaa. waxay ku tidhaahday inaad odayga ii fadhiisiisaan isku ogeen oo ku ballansanayn, laakiin odaygii markii wixii uu isticmaalayba horay buuba baagiisu qaatay, gurigii buu ka tagay. markaasu wuxuu ku yidhaahday aniga ayaa qaldoomay oo waxaan moodayey inaa qaabkii kalean u sameeyey, ee waxaad samaynaysaa midaan kale hadda kuu diyaarinayaae isagaa soo laabanaya ubad yarararoon bay laheedoo wax fahmaya, ubadkaagina kuwaan sii buu ku yidhaahday. caqli dare inteedii la eg. way qaaday mar labaad biyihii, wixii usoo qooshqooshay bay qaaday, ilmaheedii bay siisay. 3 ilmood bay ahaayeene 3doodu way isgarab seexdeen, iskuulay dugsi midna aadi kari waaye. way yaabto weli ma ay baraarugsanaa oo nolosha odayga bay raadinaysaa wixii guriga usoo fadhiisin lahaa. mar 3aad bay usoo laabatay ooy tidhaahdo odaygiina guriga wuu ka fiigay oo ka orday, ubadkiina way yara jiifteene qasadka muxuu uu yahay, anigu sidaa kuguma aana imaanine. markaasuu yidhi anaa ismoodsiiyey oo shaqada iga badatayoo odaygiina kuu soo laabta haddaad doonaysid ordoo haddana kan qaado oo adigana ku qubayso oo isticmaaloo cab, ilmihiina way kacayaan, odaygana wuu soo laabanaya. qasadka iyo danta uu lahaayo idinlo wuxuu ahaa odayga inuu guriga ka eriyo, ilmaheediina kuwii wax fahmi karayeen ama wax fahmi lahaayeen inuu markaa maskaxda ka qaado u jiifiyo, isagiina iyadu uu markaa u banaanaado. ma ay dareensano. halkaa bay la dhaqaaqday oo gurigii bay tagtay, qaarna way ku qubaysatay, qaarna way cabtay. maalinkaasaana odayna ugu dambeeyey, ubadkeedana ugu dambeeyey, iyadiina 24 sac ninkaas saaxirkaa qolkiisii dhex fadhisa. intay islahayd wax badso ayaa wax beel ku dhacayo ilaahayna uu ku imtixaanay. ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo fadligiisa iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa ilaahay uu ku badbaadiyey qofka. maantana odaygeedii bay la nooshahay, ubadkeedii baa u kacay, ilaahay u kiciyo dugsigii iskuulkii ku laabtay, iyadiina xanuun aan macno lahayn baa maanta ku dambeeyay, ilaahay ninkaas saaxirka kasoo furfuray. soomaalidana
walaysa minkum bibaciid ilaahay cid uu naxariista mooyaane arrinkaa inta maanta ka marnaato ayaa aad u yaraan badan waana arrimaha maanta qofka bini aadamka uu fududaysto oo hadhow haddana culaysaad uu ku noqdo maxay filaysay odaygii in guriga loogu qabto loo fadhiisiyey odaygii baa laga eriyey caqliga loo adeegsaday si uusan maskax u lahaanin ehelkiisuna ugu soo laabanin ubadkiibuu u fakaray oo ubadka kan haddaad inaad wax damacdo ama arrinkaaga aad qabsato aad doonaysid iyosan ku arkin ubadkiibuu wada siixiyo maskaxda ka wada qaaday sixir awgii ilaa marka dambe iyada nafsadeedu usoo dhacayo gurigiisa laga kari waayo 24 saac ay dhex taagantaa ubadkeedii dayacday waana waxyaabaha ku tusayo iimaankii inuu meeshii ugu dambaysay uu gaaray oo aanan wax iimaan qofkaasi uusan lahayn waa waaqica maanta taaganee caalamka lala yaaban yahay qofkii intuu wax raadi isleeyahay buu hog iyo halaag iyo waadi naareed xaggeeda uu ku dhacayaa qofku waa qisadii koowaad amaa qisadii labaad inan baa waxay saaxiib la ahayd ama ay la socotay inan kale oo Soomaaliya inankii Soomaaliga ahaa mar walbo wuxuu u soo qaadaa ama inanta uu mar walba u yimaanayo u keenaa waxyaabahan yar yarka ee la cunaa sida nacnaca shokolaadka waxyaabahan yar yarka qofka marka uu imaado aad is leedahay qofka kani kaama diidayo aad is leedahay ayuu horey gacanta ugu soo qabsan jiray oo mid walba oo uu u keeni jirayna loogu soo aqri jiray fal sixir ah waxaa la yidhaahdaa sixru takhyiil sixirka waa dhab laakiin waa malagelin qofka loo malagelinayo waxaad moodaysaa in lagu siinayo nacnac waxaad moodaysaa in lagu siinayo chocolate waxaad moodaysaa in lagu siinayo waxaad aad u jeceshahay laakiin intaasoo dhan waa khiyaali oo waxa aad daldalaysid oo aad cunaysid oo dhan waa qardhaasi xirsi lasoo sameeyo sixira gabadhii waa uu keenaa ma sharaysato ma baasaysato ma ay ku dhibtooto way qaadaa markaas ayay cuntaayoo afka gelisaa iyada dhadhankeedii afkeedu wuxuu leeyahay inay cunaysa nacnac ama wax macaan laakiin waxa ay daldalayso oo idil waa qardhaas waa xirsi oo loo soo wada xirxiray maalinka dambe markii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay xanuunsatay oo shifada la keenay waxyaabihii ugu horreeyey ay soo matagtay ilaahay ka soo saaray afkeeda wuxuu noqday waa wax xataa aan caqliga bini aadamka xataa inuu cuno aana keeni karaynin bacyo la isku xirxiro wax qurmoon ku jiraan qardhaas ama xirsi oo 4 geesood oo macnaha aanan xataa caloosheeda aan ku dhex dhalaalin ama aan ku gogo'in sida macluumka oo la garanayo qardhaasta ama xaashid oo kale markii biyo lagu shubo kala saa loo qaado way kala dhaqaaqdaa leen qofkan waa bani aadam waxaan uu cunay mar walba cabitaan uu cabayo waxa la doonaya inuu qaboobo ama sheegi uu macna qafiif noqdo kadibna uu baabao ma uusan baabayn isagoo sidiisa ah bay mid walba soo matagaysay oo soo tuurisay marka la wareysto la yiraahday waxa kan adu inaad meel u fadhiisatay ma aadan cunine maxaad ku sababsatay hadalku ugu horeeyay tiraadana waxay ahayd weligii qof bini aadam waxba kama aanan cunin inanka unbaa ii keeni jiray waxyaabahani macmacaanka ah oo aan sidaa ku cuni jiray hadiyada la iskala soo tag waxyaabo kale wax la iskugu dara ama la iska siina la iskala soo tag maanta meesha la maraya waxa weeyaan in nacnaci sweet dadkii wada socday aan iska filaynin oo aanan iska shakinaynin inay isugu keenaan oo ay qaadaan ay daldalaan qardhaas bay waxay cunayaan ama xirsi bay cunayaan ay moodayaan nacnac umaleynayaan waxyaabaha la cuno marka bini aadamka heerka maanta uu gaaray
ama waxyaabaha uu yacni aakhiradiisa uu ku hilmaamay adduunkan yarka uu aakhiradiisa u dhaafsanayana waa inta iladaadka iyo macaanidaas intaasoo dhan. waana waxyaabaha gariibka ah oo qofka bani aadamka inuu ku tusaale qaato ay mudan tahay in badanoo ka midna noloshiisa uu ka taxadarayo. waayo nabiga calayhi asalaatu wasalaam waxa uu tilmaamay qofka mu'minka ah inaan laba goor god laga wada qaniini karin. halka mar godka laga qaniinayo qaniinyo ay kasoo gaarta ama dhibaato, inuu kaga tusaale qaato beri godkaasi inaan marnabaad laga qaniinin oo aysan dhibaato kasoo gaarin. inagina maanta waan fududaysanay, inagiina maanta waxaanu noqonay kuwa u hoggaansan arrinkaasi si markaasi waxaa weeyaan aanan waxba uga dhiganin ilaa mustaqbalkeeni yacni caafimaadkeeni yacni waxyaabihii aan ku yidiiloonayn inaan gaarno idil ay soo afjarmaan. dad baa maanta waxayna u noqdeen arrinkaasi mid ay uga fududaystaan bani aadamka xaggooda iyadoo aan aakhira ay og yihiin inaysan wax dheef aysan u yeelanaynin. marka aada dhegaysataa ood akhrisataayo 20ka qodob ee qofka kula damacsan inuu kugu asiibiyaayo sixir ama xaaladda sixirkuu ku dhex jiro, waa xaaladaha inay ku ahaadaan mid aweliga uga digtoonaato adiga iyo ubadkaaga, aqaaribtaada iyo dhammaan walaalaha muslimiintood ku aragta dhibkaas iyo calaamadahaas in lagu hayo, inaad si hoose aad uga digto in calaamadahaasi uu ka taxadarnaado qofka bani aadamka ah. midda kalena ilaahay subxaana wa tacaala isaga addoomihiisa xifdisanayo ee khaasatan ee u ahaaday midka kan ee loo adeegsanayo in jinka loo soo dhiibo ee qofka bini aadamka dushiisa ama gudihiisa uu ku fulinayo. xataa taaqad iyo awood wuxuu u leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala aadamaha uu ku yacni imtixaanaya in wixii loo soo dhiibay jinkaasi uu isku dayo badanka iyo bini aadamka jirkiisa toos inuu u geliyo isagoo aana jeexin waxna dhiigna aan ka kaynin. welibana wuxuu markaa la beegsanayaa xilliga qofkaasi khaflad uu ku sugan yahay, ilaahay xuskiisana uu moogan yahay. qofka dembi wuu ka dhici karayaa, digriga ilaahay wuu hilmaami karayaa, meelo kale culaysaad way ka soo qaban karaysaa. xaaladahaasoo dhan kuma kadinayo, wuxuu ku kadinayaa xilli qofka bini aadamka ilaahay subxaana wa tacaala digrigiisa iyo xuskiisa si toos uu dhaafay, salaadihii oo kale uu ka tagay, soonkii uusan soomaynin, xajkii ama wixii macno looga lahaayo waajib uusan gudanaynin, maantana afkiisa xataa kelmadda oo bismillah inaysan kasoo baxaynin cajsi uu shaydaanu ka casigeliyey. markuu ogaado ibliiska ama shaydaanka intuu intaasoo dhan kaasoo cajsigeliyey ayuu kuu soo adeegsanayaa. qof aan digrigii xuska ilaahay ku sugneenna way u fududahay shayaadiinta jirkiisa inay ku bataan iskuna yacni sheegtaan. liannu midkan ibliiska ama shaydaanka ahi wuxuu saaxiib la yahay ama rafiiq la yahay naftaani ee inaga nugu jirto. shaydaanka adiga daatadaada ma ogaan karayo wixii aad ilaahay ku caasin lahayd iyo wixii aad ilaahay subxaana wa tacala guud ahaan uu og yahay, laakiin qalbi ahaan kuu ma ogaan kara ilaa ay nafti u waranto oo ay u sheegto. haddii ilaahay cibaadaadka ku adkeeyo, haddii rabbi subxaanahu wa tacaala macaamilaadkaadii macaasharaadkaaga ilaahay kuu adkeeyo kuu wanaajiyayo, meesha uu kaa soo gelayo kaa waraysan karo oo aad ka jilcan tahay wuxuu ka waraysanayaa naftaada. ilaahayna uu ku tilmaamay qur'aanka ina annafsa la ammaaratun bisuu, naftaani nugu jirta ilaahay nugu imtixaanay xumaan inay ku amarto ay ku farta mooyaane weligaa intaad noo sheegay kama sugaysid inay wanaag ku farto, wanaag ay ku amarto. taas buu la saaxiibayaa, wuu u imaanayaa, wuu weydiinayaa meelaha aad ka jilacsan tahay, wuu weydiinayaa meelaha lagaa soo geli karo oo haddii dhinacyada lagaa soo galo oo aadan marnaba aadan diidaynin oo ad aqbalaysid buu weydiinayaa.
markaasay naftiina u warrami oo ay dhihi halkaa ka soo galo halkaa buu ka jilcan yahay oo waxay dhihi halkaasaa markaad ka soo gashuusanna marnaba kaa diideynin oo halkaa buu jecel yahay halkii buu shaydaankii kaa soo marayaa isagoo falkii iyo ficilkii wixii fulin lahaa u wato halkaa buu kaala soo gelaya. guryaha muslimiinta maanta aad bay u dhibaataysan yihiin. in si rabbaaniya loo haayana way jiraan, in ummad ku dabalamaansan yihiinna way jiraanoo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka badbaadiyo mooyaane in badanoo ka mida imtixaanaadkaas uu ku soconay. bini aadamkii ayaa bini aadamka lagu shuqliyey maanta. waaqicaadka caalamka maanta ka dhacayona ma aad malaysan karaysid. qofkana bini aadamkan waxaa la doonayaa hadduu hal imtixaan shay uu ku soo maraa imtixaanada ka dambeeya oo dhan inuu uga tusaale qaato ku imaan doonaa, maadaama qadar ilaahay uu yahay inuu kaga tusaale qaatay imtixaankii hore yimaaday inuusan tan labaad meeshii hore laga qaniinay inaan marnabaad laga qaniini karin. liajli daalika baa marka waxay noo noqonaysaa tusaale ahaan arrimahan in anagu ka baraarugsanaano, ummaddiina aan ku baraarujinno, ummaddiina aan u caddayno oo aana u tilmaanno. nabigana calayhi asalaatu wassalaam waxau inoo sheegay inaan ummaddani barkooda ama qaarkooda aysan ka zuuli doonin inay xaqa u caddeeyaan walaalahooda muslimiinta ah. leanna maxaa yeelay qof walba cilmiga iyo waxa uu yeeshay maanta uu leeyahay mid adduunya mid aakhiraba, isaga hadduu isku koobi lahaa u dhihi lahaa adii awlaadaada keliya isku anfaca, ilaahay isagana kuma anfacsii lahayn oo looma barakayn lahayn, ummaddiina way dhibtoon lahayd. waxa ilaahay khayrul umam nooga dhiga, ummadaha ilaahay soo saaray oo dhan ummadda ugu khayrka badan waxa nooga dhiga waxa weeyaan inaan wanaagana aan farno, xumaantana la reebo. wanaagga in la farana waxaa ka mid a in walaalaha muslimiinta loo caddeeyo waxyaabaha ay jahliga kaga sugan yihiin noloshooda iyo diintooda iyo nafsadoodiiba. liajli daalika baa waxaan idin dardaarmayaa qof walba inaga naga mid ee muslima, kii hadda daawanaya iyo kii daawan doonaba, in awal nafsadaada ku dabaqdo arrimahan iyo shayadan iyo mawduucana soo tilmaamay inaad kaga taxadarto. ehelkaagii aqaaribtaadan inaad kaga taxadarto. ilaahay baa wax xifdin kare, aduguna dadaal aad samayso, dadaalkaagana ilaahay kuguma dayici doono. liajli daalikana kamana zuuli doono intaanu noolnahay ilaahay naf ina geliyo aan naf nagu jirta, marnaba kama zuuli doonaa caalamka intaanu joogno in wax ilaalay wixii bani aadamka dhibayo ama bani aadamka dhibaato ku hayo inaan u waadixino, aan u sheegno oo aanan u caddayno si iyaguna ay uga taxadaraan. ilaa maxaa yeelay kelimadda sadaqada ay kaa soo baxda ee wanaagga walaalaha u fartoomaysayo, inta ay kaa soo baxdaayaba intifaac u yeelanaysaa walaalaha muslimiinta ah. haddaanu maanta isdhihi lahaa inta ilaahay aqoonta iiga siiyey arrimahani ku saabsan cilaajka, arrimahani ku saabsan dhibaatada shayaadiinta iyo saaxiriinta iyo makriga iyo xasadka ay ku hayaan bani aadamka, oon dhihi lahaa adigu unbaad baratay, adiga iyo awlaadaada iyo ehelkaadii aqaaribtaada lena ku ilaali, annagana ma aan ilaashami lahayn, yacni mana aan barakoobi lahayn. waxa qofku uu ku barakoobayo ku ilaashamayo waxa weeyaan in uu ku dadaala ghayrkiisa iyo walaalihiisa muslimiinta ah. lianna maxaa yeelay markaad adigu xawaa'ijta ururinta walaalaha muslimiinta aad ku shuqloon tahay, ilaahayna taadii buu daboolaya uu ku mashquul, ilaahay subxaana wa tacaala uu asturaya. bixasba intaad ka mashquulsha walaalaha muslimiinta xawaa'ijtii danahooda iyo waxay u baahan yihiin, bal adigoo garanayo awoodo aad ka mashquulshayo, ilaahayna adigu ehelkaagii dadkaaga ayuu kugu mashquulinaya oo malagaaga dhigaya. marka fakarkaagii ha ahaado, hamigaagana ha ahaada mid xambaarsan sidey ummaddii nebi maxamed ay ku badbaadaa fitanta maanta jira iyo dhibaatooyinka jira, sidee uga badbaadaa oo aduguna gacan aad uga geysan karaysaa si ilaahay taada u xifdiyo. waxaa xadiis ku sugnaaday nebiga calayhi asalaatu wasalaam oo uu leeyahay qofka yacni bani aadamka ah
ayaa ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha u yeeri doonaa oo wuxuu ku dhihi doonaa addoonkaygiyo waan xanuunsaday mana aadan isoo booqanin. markaasuu addoonka wuxuu ku jawaabayaa rabbigii ku leeyahay rabbiyow adiba rabbulcaalamiin ah, xanuunkaba adiga ayaa abuuray, bidi wixii kaa sokeeyey iyo wixii kaa hooseeya rabbiyow xanuunsanayo xanuun ku xukuman ee rabbiyow sidee kuu soo booqanayaa. markaasuu rabbi subxaana wa tacaala ku dhahayaa addoonkayga fulaan baa xanuunsaday oo bukooday mana aadan soo booqanin. booqashada walaalka ama walaasha xanuunsan ee aad soo booqatayo waxay ka dhigan tahay inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad soo booqatay. taas awgeeda marka waxaa idinkaga tilmaamayaa intaad ku mashquulsan tahay xawaa'ijta ururinta addoommaha ilaahay baa adigana ilaahay subxaanahu wa tacaala xawaa'ijta ururinta danahaagii ehelkaagana ilaahay hagaajinaya. bal sunnatullaahi waxaa ka mid ah gargaarka ilaahay inaad heshaayo waxaad ka horrayso inaad aduga aad samayso wixii uu ku amray oo gargaaritaan ah. liqowlihi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum. kuwa xaqa rumeeyayo haddaad ilaahay u gargaartaan baa ilaahay idinkana idiin gargaaraya. gargaaru ilaahay adiga si gaar ilaahay kaaga baahan yahay ma aha oo adigu ilaahay ku abuurtayo adigu kuu gargaaraya kuuna kaalmeynaya xawaa'ijtaadan ururinayaaye gargaarku ilaahay adu kaaga baahan yahay waa maxay? waa inaad u gargaartaa addoomihiisa, koodii buka, koodii daciifka ah, koodii aan waxba haysanin, inaad ku shuqlooto oo aad arrin subxaana wa tacaala addoomihiisa ku mashquushta xawaa'ijtooda inaad u guddo o aad u kaalmayso garab istaagto. markaasa adigana waxaad helaysaa nasriga iyo gargaarka alle subxaanahu wa tacaala. sidaas awgeeda insha araxmaan waxaa mar walbanaan ku dadaalayaa wixii ilaahay cilmi igaga baray arrimahan macnaa cilaajnimada ku saabsani inaa idiisoo gudbiyo si ay markaasi uga taxadarmaan bani aadamka iyo caalamka meel walba ay ka joogaan. hada wallahu waliyu tawfiiq وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.